بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kalimaadkii aan u gaar yeelnay nebiga maqaamka uu ilaahay agtiisa ku leeyahay inaan caddayno annagoo ugu dan leh in nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii aan ogaano xaqiiqadiisa iyo wuxuu yahay inaan jeclaanno markii aan jeclaanana ay noo sahlanaato inaan sida ugu habboon aan ugu dayanna fii cibaadaatina marka maanta waxaan ka hadlaynaa thawaabu maxabatii sala allahu calayhi wasalam ninka nebiga jeclaado wuxuu ka helayo ajir iyo xasanaad ah qaybna waa kasoo ishaarnay oo dee tii hore iyo tan hadda calaaqa bay isla leeyihiin oo nebiga in la jeclaaday inay laasim tahay iyo in maxaan ku yidhaahdaa wixii lagugu laasim yeelay wax baad ka helaysaa oo wax ilaahay agtiisa bilaashkaaga tegayo ma jirto qofka mu'minka camal kastou qabto waraa'ahu ajr ilaahay baa ajirkaa siinayo waxaan hore u soo sheegnay nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama ilaahay uu doortay inuu rasuul u noqdo insaanka oo dhan ama bashariyada dhammaanteeda iyo jinniga dacwadiisaas intuu loolan iyo dhib u soo maray naftiisana miiska uu u saaray waan soo marnay marka ilaahay wuxuu ku abaalmariyey intii diinta islaamka qaadato oo asiga toos ugu qaadatay iyo dadku asiga sabab u ahay dadkii kasii qaatay ilaa qiyaami saaca inta diinta ka qaadato rumaysay intay ajir ka heleen in la mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala nebiga siinayo waa maqaam aad u sarreeyo inta muslimiin adduunyada soo martay imise milyaaraad bay gaaraya haddeertaan 1,500,000,000 yaa ku nool muslim ah intay ajir qof kastaba gooni u leeyahay in lamid ee nebiga buu leeyahay intii marka muslimiin oo hore soo martay iyo intii kasii dambay doonto ajirkiisa uu nebigu waa leeyahay calayhi salaatu wasalaam deeqsiga allah subxaanahu watacaala baa intaasna ugu gartay wa ina laka la ajran ghayra mamnuun buu ilaah yidhi waxaad leedahay ajir aan go-aynin ilaa qiyaami saaca buu saas ugu durdurayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aniga haddaan ka gaabiyo ama adiga waxa weeye hanqaraarac lagu uma hintiyo nebiga inta uu ajirka helaya baa ka badan marka sidaas waxaanala gudboon inaan ummaddaas aanan qayb ka noqonno oo aan nebiga calayhi salaatu wasalaam asigana aan jeclaanno lianna huwa sabab fii hidaayatina sabab mubaashir ahaa jira iyo sabab oo ghayru mubaashir ah nebiga haddeertaan dadkii wax ka bartay kasii barta annaga waxna bareen marka sidaas horta waa mid taana waxa weeyaan ummadoo dhan ilaahay wax buu ka siiyey haddii qofka muslimka ah oo nin walaalka adiga aad u ducaysid oo tiraahdid ilaahu ninkaas dantiisa gaarsii ilaahu dembigiisa dhaaf ama caafimaad sii malag baa shaqadiisa waxay tahay inuu kaa aaminsado yidhaahdo walaka almithlu adigana intaas in la mid ahaad leedahay haddii diintii dadka aad bartid adigane sidii nebiga looga siiyey ummaddaas rumaysay nin kastoo diintii adiga kaa qaatay ama sabab islaamka aad u noqotay lian yahdiyaka allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam buu nebigu yiri haddii nin sabab islaamka aad ugu noqoto islaamka inuu soo galo ajirkiisa waa kuu soconayaa ninkaasi asiga iyo wuxuu sabab u noqdayba haddii ay islaam ahaynoo islaamkii nin islaamha diin bartay iyadana sidaas oo kale marka waxa weeyaan fadliga ilaahay waa waasac fadligana meeluu ku egyahay ma jirto oo maanta meeshii aad gaartid meel baa kasii dambayso marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa adduunyada intaad ku joogtid inaadan ka joogsanin inuu maalin kastaba aad khayr aad kordhisanaysid kullamaa adduunyada gadaal ay kasii dhib badato iimaanka iyo islaamka dadka dhib buu ku noqonaya hadda maanta waad aragtaan way kala duwan tahay mar islaamka waddanka dhan uu ka taliyo oo ummadahoo dhan ay ka haybaysanayso islaamkaas inaad haysatid waxa weeyaan waxaa ka adag waqti islaamka lagula dagaalamayo xijaabkii aan la ogolayn laa ilaaha ila allahu simaadkii garkii inaad daysata aan la ogolayn ina diintii dad aad bartid aan la ogolayn intaasoo dhibkii markii ziyaadaba ajirkeeda waa kordhaya wax bilaasha adduunyada ma jiraan marka
qofka haddii qof diin ama hanuun ugu yeero hanuunkaas intii ka qaadatay ajirkooda waa leeyahay ayagoon ajirkoodana laga nusqaaminaynin marka nabigaan ku soo noqona calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan ninba wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiyow waqti waxaa jira buuri aniga aan ducaysto oo naftayda aan u gaar yeelo marka ducadaas imisaan kaaga goynahoon adigana kugu daraa macnaa aniga marka naftayda ducaysta adigana aan kugu daraa markaasaa layidhi waxaad doontad ka dhigo markaasaa yidhi rubac ka waran markii 4 loo dhigo qayb ka waran haddii aan ducadaada anigana 4 meel markii 3 ka mid aniga isu duceey midna adiga aan kuu gaar yeelo markaasaa layidhi maa shi'ta wa in zidta fahuwa afdalu laka haddaad ka badisna waa kuu fiican tahay haddaan nis ka dhiga ka waran haddaan thuluthayn ka dhigo ka waran markii dambe waxaa leeyahay mar kastaba haddaad ka sii badisay kaaga fiican tahay xadiidka tirmidi awray wuxuu yiri xadiithun xasanun saxiix albani keyrkiisuna waa saxiix yeeleen marka macnaheedu waxa weeyaan ninkii wuxuu go'aansaday markii dambe inuu yiraahdo ajcalu laka salaatii kullaha ilaahay rasuulkiisiyo ducadaydii oo dhan adigaan aan ku intaan aniga ducaysanahay adiga leen markastoo naftaada ducaysan ilaa nabigaan u ducaynayaa buuri marka nabiga ducadii wuxuu u jeedaa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad saas u jeedaa marka intaasaan ku bedelaa buuri markaasuu nabigu wuxuu yiri hamigaadana waa la kaafina dambigaadana waa la dhaafaa sidaas haddaad yeeshid marka fiiri thawaabka kaa soo galay inaad adiga naftaada ilaahay toos ugu ducayso ilaah waxaa isii intiraad inaad nabiga u baridid ku sallisid waxa kaa soo galaya ka badan in naftaada u ducaysid labadii waa heli kartaa inaad isku darto adiga mar ducaysid nabigana mar u ducaysid waa heli kartaa inaad nabiga ducadoo dhan aad u khasiyeshidna waa heli kartaa oo ay kaaga fadli badan tahay markaad naftaada u ducaysid oo kale marka taa waxay tusinaysaa nabiga agtiisa nabiga qiimaha ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala uu ku leeyahay laakiin nabiga markii la leeyahay ha loo duceeyo waxaa loo jeedaa asalaatu calayh salaadaasna siiqay leedahay cibaado mar hadday tahay waxaa la rabaa cibaadadii siday tahay oo nabiga looga soo gaaray in loo qabto sida aan sheegi doono wax la yidhahdo aliqtidaa marka saxaabada nin bashiir la yidhaahdo yaa yidhi ilaahay rasuulkiisa usaan kuu salaana annagu waa naqaana assalaamu calayka yaa rasuulullahi baan ku leenahay laakiin sideen kugu sallinaynaa buuri markaasuu nabigu wuxuu yiri haddaad rabtaan in igu sallisaan waxaad tidhaahdaan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة إبراهيمية لهذا الصيغة وبلنتها لكن مدان إحدى صيغها هي كمتها مركا وحي سو أرور أيد إمد لمد وسيدا صيغة اسكود الدو مد كمد إن النبي كسل سيدا لدونيها waxaad arkaysaa maanta nin kastaba inuu iska samaystay siiqa gaar ah uu leeyahay nabigan ugu salinaa ninkan waxaa lagu leeyahay salaad fulaniya la yidhahdaa ninkii sheekh tariiqa ah salaada noocan iskale kana salaada nooca maya diinta wax la kale leeyahay ma jirto diinta hal meela laga soo gaaray tariiqayna leedahay haddii ay ahaan lahayd nin kastaba siduu rabo nabiga ha ugu saliyo saxaabigaas ma weydiin lahayn seen kuugu salinaa nabiga markay u liidiseen kugu sallinaa inaysan meesha khiyaar ka furneen lama dhihin sidaad rabtid iigu salli lama dhihina sidaan iigu salli baa lagu yiri marka afdalu salaatin cala nabi sal allahu alayhi wasalam in salaat ibraahimi aad baratid waay waxaa qayb ah oo habboon qofkii maanta maalan quraan baad qayb maalin kasta qayb quraan aad akhrisaa maalin kasta qayb tasbiix aad akhrisataa qaalib maalin kasta qayb tahliil oo laa ilaaha ila allah aad akhrisataa marka inaad nebiga sallintiisa adigana qayb aad ku dartid aqala taqdiir يعني بقول توحيد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك بعد أخرسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله هذا أخرسي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم قيباتك أخرسي سبحان الله وبحمده قيباتك مركا قيبتاس
markay ugu yaraata nebigana intaasoo oo inaad ku sallisidoo siiqa ibraahimiya ah yani inta ugu yar oo aad leedahay nebigu waa iga astaahilaa inaad markaad ilaahay xaqiisa gudatid nebigana aad u ducaysid nebiga waxa weeyaan waa duca asaga lama baryaay nebigu waa loo duceeyaa ducadiisana waa salligaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ee lagu salliyo sidaad awgeed waxaa weeyaan iyaysan idinka noqonin cibaadaan la imaanayaa cibaadadiina calaa kayfi aniga sida ila noqoto sidaana ila qurxan nebiga wuxuu yidhi aniga sidaan ha laygu salliyo miyaa qurxan mase wax adiga maskaxdaada ka heshaa qurxan mushkilada annaga na haysata waxa weeyaan ninkii mar diintii waaba ka maqan yahay salaad male soon male ciyaal suuq weeyaan marna diintii buu soo dhexgalaa haddana dhinac kale uu sii baxaa wax buu asaga jeebkiisa ku wataa waxaa adaga almantiqatu lwustaa in laysugu yimaado war diin haddaadba ka hadlaysid nebiga intuu iga jiraa dheh maxaa nebiga uu i amray nebiga sidee siiqada sees u duka jiray sow zakada u bixin jiray sow u tasbiixsan jiray nebiga xaggiisa wixii ka soo arooray qaado ninaa wuxuu ku leeyahay wax badan baan awoodaa war waxaa nebiga kasoo laga soo guuriyey oo cibaadaad ah haddaan habeen iyo maalin u taagnaana xataa ma dhammayn karnabo marka wixii mashruuca ah oo nebiga noo jideeyey yaan taag u la'nahay kuwa jeebkeenna aan ka wadano oo la hubin meelay in la aqbali doono in kale maxaa adigaad isugu khasaarinay midaan nebi moxamed baan ka maqlay hadduu lagu yidhahdo min ayna atayta bi hada ilaahay rasuulkiisii yaana soo gaarsiiyey siiqadaanaana ku maqalnay culammadaasaanaan ugu maqalnay ina tiraahda la rabaa jawaabaad u helaysaa laakiin wixii adiga aad keensatay haddii lagugu celiyo ka hor handhow maxaad xujo u helaysaa ma jirto marka annaga waxaan ugu adag wixii inaan qaadanno sidii yihiinna aan u qaadanno nin kastaba sibuu ula imaanaya salaad markaan dukanayn nebigiisa uu duka jiray inaan isweydiinno abu hurayra iyo dadka waaweyn oo saxaabada ah markay meel isugu yimaadaanbo waxaa la dhihi jiray yaa yaqaana salaadii nebiga siduu u duka jiray salaad aan waqtigeeda la jooginba yaa oo sunno ayay duka jireen si isu baraan marka ninkan waa fiirinaya waa la fiirinaya waa dukana markuu dukada dadkii kala qiimeynaya wallahi sidii nebiga aan ku aragna aad dukatay baa laleeyahay waxaa saasaa dadkii nebiga soo arki jiray baa waxay leeyihiin sayna u iloobin iyo iska hubinayaan annagana waxaan rabnaa inaan iska nidhaahdo waxaan waxba dhibi maayaan iska wada wax ma dhibayaan wax la yidhahda ma jirto qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah iqtidaa waa ka hadli doonaa waa darsi noo soo socduu qeyb ka yahay yaana hadda kasii hor dhicin marka aan ku soo dhowaano nebiga calayhi salaatu wasalaam in la jeclaadaahu waxay ka mid tahay sidii hore aan u soo sheegnay min afdali alqurubaat alatii yutaqarabu biha ila allah nebiga in la jeclaado waa daacad ilaahay loogu dhowaado tan ugu wanaag badan ay qeyb ka tahay oo insaanku ku gaaraya darajaad aad u sarsareeyo marka qofkana waxa weeyaan waa wax weyn inaad heshid darajo oo ay sarreyso nebigaaga jacaylkiisana as ilaahay ka abaalmariyo عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله نبا النبي اسكي مدو ددك عربيين تا وحوري قيامة نوغو درنا غورما يدعيسا نبي خطبتيسو اسكسي وتمركي دبو وجواب حوري ما أعددت لها قيامة أتشيغي سوت كعبسنيسد محاد وديارستي وركاس ورآدو قيمة بدن ويان يعني قيامة يدعيسا maanta haddaad isku mashquulisid waxa ay kuu soo kordhinay male waxaa la rabaa war qiyaamadii haddayba oo laga hadlay inay soo dhowdahay war maxaa ila habboon inaan qabto taas inaad ku dhaqaaqdid weeyaan laakiin maanta dhan qiyaamadii aan ka cabsanaa waxna ma qabsanay waxba kuu keeni mayso markaasaa nebigu wuxuu iri maa acdadta laha maxaad u diyaarsatay qaala wuxuu iri maa acdadtu lahaa min kathiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulahu allahu akbar ninkaa wuxuu iri wax badan aniga uma diyaarsan salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan ma diyaarsanin oo wixii layga rabo waajibku waa sameey laakiin wax badan ma samaynin walaakinii uxibu allaha warasuulahu buu ninkaa yiri ilaahay rasuulkiisaan jeclahay markaa nebigu wuxuu iri anta maca man axbabta waxaad la jiri doontaa qiyaamada aad ka cabsanay markay dhacdo
waxaad la joogi doontaa dadka aad jeceshahay fii jawaari illaahi wa jiwaari rasuulihi sala allahu calayhi wasalam jannada saro oo taxta carshi araxmaan ah yaa lagu geynayaa nebigii baad maciisa noqonaysaa calayhi salaatu wassalaam marka arrintaas waxa weeyaan arrin aad u qiimo badan wuxuu ku helay ninkaas jacaylka ilaahay uu jecel yahay iyo rasuulkiisa darajo weyn oon la filaynin yuu ku helay marka bishaaro aad u qiimo badan waa nin kalaa weydiiyo wuxuu iri yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim ilaahay rasuulkiiso waxaad iiga warantaa nin dadkiina jecel camal gaarsii kara waxay samaynayaan aan haysanin maxaa u dan abuuri markaasuu iri almar'u maca man axabba nebiga haddana jawaab kale waa xadiid kale oo saxiixa markaa la yidhi haddaa camalkaada uu yar yahay oo laakiin qoomkiina aad jeceshahay dadkaas aad jeceshahay daraaddeeda kor lagugu soo qaadaya camalkaadi maalan daraja min aljanna uu ku gaarsiiyey hadduu ilaahay jannadii ku gileeyo dadkii aad jecleedna boqolaal darajay ku dheer yihiin marka jacaylka aad jecleed awgeed dadkaas baa ilaahay kor kugu qaadaya jannada waxa weeyaan waa dadka waa lees gaarsiiyaa waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay labada waalid isu ah hadduu midkooda daraja dheer jannada ka helo koona jannada hoos uu helo kiida kan saro hoos loo soo celimaya kii kalaa la qaada oo yaa kii oo koraa laga dabageyna liannahu jannada ilaahay wuxuu uri wafiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu lacyunu nafta waxay jeceshaha laga helaa indhahana ay ku raaxaysanayaan qofkii oo waalidkiisa ka hoose ma raaxaysanaya soo asiga loogu raaxayaa waalidkiisa laga dabageynaa ama waladka adaa kaa hoos maray adaa ka sara martay naftaada raaxa ma dareemayso oo lagaa dabageyna sidaad u raaxaysatid marka faras baa jirta badan oo darajaad dhaadheer lagu kasbo karo adigoo aanan waxweyn oo juhdi aanan bixinin anas markuu arrintaa maqlay wuxuu iri famaa farixa almuslimuuna faraxahum bihada alxadiid wuxuu iri muslimiinta xadiidkan oo kale say ugu farxeen wax lamid ee lama arkin buu yiri markii la yidhi si laysul jecel yahay yaa dadka layska dabageynayaa markii la yidhi farxad weyn bay ku dhalisay markaasuu anas wuxuu iri innii uxibu rasuula allah wa uxibu abaa bakrin wa cumar radia allahu canhuma wa arjuu an yabcathani illaahu macahum wain lam acmal kacamalihim buu iri hadalkaas fiiri wuxuu iri aniga maalinka ninkaas hadalka loogu jawaaba aad buu ii farax geli buu iri lianna waxaan ogahay inaan camal aan qabtaa aan ugu dabategi karin nebiga iyo abubakr iyo cumar laakiin maadaama nebiga uu iri nin kastaba cidduu jecel yahay baa lala meelgeynayaa yaa waxa ii soo baxda rajo weyn ah inaan aan nebiga iyo abubakrin iyo cumar ay meesha joogaan inuu ilaahay meel iga gaarsiiyo oo meesha i gaarsiis bisababi xubbii lahum jacaylkaas ayaga aan jeclahay daraaddeed waa marka xubbiga waxaa qiimahaas loo yeelay waxa weeyaan qofkaa markaad jeceshid aad jeceshahay wuxuu qabanay unbaad qabanaysaa sidaa daraaddeeda ilaahay kugu abaalmarina waman yutic illaaha waarasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa marka fiiri ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa ateeco ateecadana waxaa daacadana maxaba asaasan u ah camalkan aad qabanaysa adoo neceb haddaad qabatid waxba ka heli maysid laakiin camalkan markaad qabanaysid adigoo tacdiiman lisaaxibi hada alcamal ilaahay baad caabudaysaa ilaahay waxaad u caabudaysaa xuban wa tacdiiman fiiri marka waxa laga cabsada waa badan yihiin hadda adig libaax waad ka cabsanaysaa cidla marka tahay waa cabsanay allana waa ka cabsanay cabsadaas isku mid maaha mid waa cabsi mujarad ah midna waa cabsi ay weheliso xubbi tacdiim ilaahay markaad ka cabsanaysa waxaa weheliyay jacayl adiga aad jeceshahay iyo aad cibaadadaada ilaahay ku weyneynaysaa marka taas baa waxay keenaysaa darajo aadan mutaysanin in lagu gaarsiiyo oo aad qiyaamada markaad tagtid min annabiyiina waasidiiqiina nebiyiinta oo waatii sidii nebi maxamed oo kale sadiiqiin sida abubakr oo kale shuhada dadkii dagaalka ku dhimatay ee baqiyatu saalixiin
dadkaas in lala jiraa wanaagsan buu ilaahay waxasuna ulaa'ika rafiiqan dad meel loogu tago oo wadaay laga dhigto oo meel lagula noolaado dadka ugu wanaagsan weeyaan sidaa daraaddeed baa waxaa fiican qofkii inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa aad ku dadaashid hadhowtid damba meel aadan filaynin bay kaaga soo baxaysaa sidii nabiga maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam darajaadka loogu gaaro yaa ilaahay iyo rasuulkiisa in la jeclaadane dhibyaal badanaad ugu magangelaysaa fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan ina nebiga ninaa loo keenay oo khamre cabay nin saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi allaahuma alcanhu maa akthara maa yu'taa bihi ilaa rasuulillaah ilaahu ninkan lacnad buu yidhi maalin kasta khamruu cabay annaguna mashquulinayaa buu ilaahay rasuulkiisa uu mashquulinaa maalin kasta waa la garbaashayaa marka waa lacnaday nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam dacuuhu fa inahu yuxibu allaha warasuulah war ninkan lacnadiina wa nebigu waa u diiday sida aad u necabtihiina ka daaya layidhi xaddihii uu galayna ha laga oofiyo laakiin yaan wax kale loogu darin maxaa yeele ninkan qiimo buu leeyahayoo fa inahu yuxibu allaha warasuulah fiiri asagoo ninka xun oo khamra iyo kabaa'ir dunuub qabanayo xubbigii uu nebiga iyo allihiisa uu jeclaa yaa wax badanay u tartay oo layidhi ninkan maqaamka aad u malaynaysiin ma aha layidhi nin sahlan ma aha wuxuu haystaa darajo sara buu haystaa liannahu haba iska xumaado cumaan ha sameeye laakinahu yuxibu allaha warasuulah taasaa in lagu qiimeeya ay tahay marka maxay kula tahay ninkii toosnaashadiisina ku darsaday ilaahay rasuulkiisa inuu jeclaado wax la koobi kara ma aha wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin